بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا ومالين وين مانتا ومالينتي لقطة هو يكال إلى لقاء أنيقو حمد حسين عبد اللهية وحا مانتا قرب كيغا تشوكتا هند غاندي وسيرة أريمها بلشدة oo maanta garabkayga taagan oo haweenka inta leeg isku soo baxay oo maanta lugeynaya group hooyo kaale ila lugee maanta noogu timiday wadada baligubadle ee siinay oo maxaa la yiraahdaa halkan maanta marti noogu ah ilaahay baa mahad dhamaanteed iska leh waxaan ugu mahad celinayaa hablaha igu soo casumay hooyo ila lugee oo ah madalay ku kulmeen haweenka reer Somaliland gudo iyo dibadba waxaan leeyahay marka koobaad aad baad u mahadsantihiin waxaan jecelahay madashanaad igu soo casunteen inaan saddex kelmadood uga faa'iideysto hal xabana waxaan jecelahay inaan idin kula dardaarmo kow taan uga faa'iideysanayaa waxay tahay geela buu yiri kudna waa hayaa waxna waa u heliya haweenka isu soo baxan ay lugeynayaan waxa weeyaan ujeedo ayaa ka dambaysa ujeedada ka dambaysa waa maxay waa laba kow in ay soo badatay dhibaatadii loo geysanayay haweenka oo runtii gobolada Somaliland ku ah wax uguba oo aan hore looga arag qodobka labaad inay waayeen wixii ay xaq u lahaayeen ay wax u barteen oo ay tabayaan oo golayaasha qaranku ay kow ka yihiin wax weeyaan waxay bandhigayaan inay yihiin quruun uuman oo cudud leh oo aqoon leh oo karti leh oo wax qaban kara bulshadana kamida kana mida dadka ugu badan taasi wax weeyaan waa baaqa ay jeedinayaan hooyo ila luge oo inantu waxay wax u baratay inay hesho waxay xuquuqda u leedahay inay qabato wixii inanku qaban karayo ee aanay diintu ka reebin diintu waxa ay reebtaa way cadda waa maxay waa dhaxal iyo mag ayay reebtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu inanta ku kala fadila inanku yaqaanay baran kartaa inta inanku yaqaano bay qaban kartaa inta uu qabtaa bay qaban kartaa sida aawadeed baaqani maanta wuxuu ku salaysan yahay inay helaan haweenku golayaasha ay musharaxiinta ka yihiin ee qoondadii xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu 18 ugu soo simay in loo ogolaado ee ay golaha wakiilada aan runtii shirgudoonka boqolkiiba boqol u mahad celinaya geed dheer iyo geed gaaban bana ay u fuuleen ay dabada u daafadeeyeen alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh halkan isku kaaya simay hablaha dhamaan hablihii Hargeysa hablihii Somaliland hablihii caasimada oo maanta halkan hooyo ila luga barnaamijka hooyo ila luga ka fulgaliyay waxaan leenahay inta guryaha ku jirtana ka soo baxa guryaha waayo lugtu waa caafimaad waxaana lugtu ka socotaa wadada baligubadle wadadan siinay halganka wadada baligubadle marka waxaan ku dhiirigelina hablaha guryaha fadhiya maadaama caafimaad inoo tahay iyo dhiirigelin inaga dan inoo tahay wixii danteena inaynu isku dhiirigelina inaga inoo fiicantay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa Xamda oo hadli doonta waa 5 hablood oo ka kooban hooyo kaale ila luge laakiin ugu yaraan waxay ka kooban yihiin 150 hablood oo aragga naafada ah waan idinku soo dhaweynaa maanta inaad nala lugeysaan si caafimaad leh alxamdulillah ilaahay baa mahad maanta halkan isku keenay magacaygu waa Xamda Caawiye sida hore uu sheegtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan ila luge maanta inaan ka soo qayb galo dadkii soo qaban qaabiyaan bayna anaga nagu soo daraan qayb ka ahaana aad iyo aad baan ugu bogaadinay waxaan leeyahay kun jeer iyo kow jeer baa ku mahadsantiin halkaana ka sii wada maanta halkan waxaan ku maraynaa 5 hablood oo aragga naafaka maxay toolay hablaha aragga naafada kana waxaan ku dhiirigelinayaa ila midka inay ka soo qayb noqdaan waayo anagu maadaama dad aragga naafakaanay inta badan socod ma sameynay waxaan ku soconaa waa taxi oo markasta meel u baxaya anigu imika Xamda ahaan taxi baan kareystaa markaas waxaan ka codsanayaa hablaha aragga naafada ka inay barnaamijkan hooyo ila luge ku soo biiraan walaalahayga hooyo ila luge maxay toolay maanta nagu soo dhaweeyay halkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo maanta jawiga Hargeysa uurka ka soo baxay oo leedhaas macaan jooga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wana ku mahadsantiin martiqaadkiina aad iyo aad ka qaaliga inoo sameeyay maanta waxaan ku sugannahay wadada siinay
balligubadle saaka waxaanu xaafad ay uga soo baxeen in ka badan 300 oo dumara inay ka qayb qaataan socodka jimicsiga loogu talagalay inay ku jimicsadaan marka kantaroolkii Hargeysa ay socodka ka soo bilaabeen waxaana ku tageen wadada balligubadle bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn magacayga waxa la yiraahdaa Raxma Yuusuf Maxamuud dadkuna oo garan og yihiin Raxma Booni halkan waxa maanta aan iskugu nimid dhamaan hablo tiradoodu gaarayso maxay tahay 300 waxaana isugu soo baxeen barnaamijka hooyo kaale ila luge barnaamijkaas oo muddo barkiisa iyo maskaxda iyo fikirka ay lahayd Xamda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa uguna hambalyeynaya fikradeeda ay ka mid dhalisay faa'iido weyn ay ugu jirto dhamaan hablaha reer Soomaaliland khaasatan hablaha reer Hargeysa waxaan oran lahaa walaalayaal guriyihii baynu fadhinaa shaqaalaynu qabsanaynaa guriyihii baynu maxay tahay saynu u fadhinaa baroorina qabatay marka aynu soo baxno aynu lugeyno caafimaadkeena aynu ka talino